telefishinka qaranka Soomaaliyeed qodobada wararkana waxa kamida ugu yaraan 5 qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax loo adeegsaday gaari walxa qarxa laga soo buuxiyay oo maanta ka dhacay saldhigga degmada Waabari ee magaalada Muqdisho guddoonka golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in 8 bishan soo socota oo furmi doono kalfadhiga labaad ee golaha shacabka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii khamiisla ahaa ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo ururada bulshada ayaa magaalada Garowe kula kulmay guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta doorashooyinka qaranka ayagoo ka wada hadlay sidii ay wada shaqayn lahaayeen qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo aad u weynaa kana dhacay gobol ku yaala koonfurta dalka Afghanistan ee Helmand ayaa dilay ugu yaraan 29 qofood isla markaana dhaawacay in ka badan 60 kale intaasina waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan وجالية الصومالية يكونوا ذلك يواندا وحا أي كسب بحين شرع لقاتين مدحونها جمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو أو بقشكو شوجا ذلك يواندا وأنا قريب جلدونا شرع لقاها الله يقربها قحوتيجا يبرتجري سيد دولة يواندا جالية وحي مدحونها أوجد بين عبشوين كلا دوان وكوسابسن لأن يراك حيران يدلكو جالك وضن كان يكوسو جري لهين ما أنت والله ما كله هرسنين islaanta yadii ugu weynayd iyo odayga yagii ugu weynaa iyo kaayadii ugu weynaa iyo ganacsadayadii ugu weynaa iyo kuwa wax noo kala haray ma jiro kulli waxaan gurmad u nahay 8 caruur wiilal xirxiran waxaad ka qabato ilaahba og banaan bax baan u sameeynaa madaxweyne farmaajo waxaan ku leeyahay hambalyo ilaahay xilka qabataa kugu saacido tan kale waxaan ku leeyahay maalinta qiyaamo qofka markuu qabto xil waa qofka ugu daran su'aalaha la weydiinayo taana waxaan kugu baryayaa ilaahay inuu ku fududeeyo kuna guuleeyo insha Allah dhalinyaradii 2013 October xaafadan u badanahay laga soo qabtay madaxweynaha intuu madaxweynaha ahaa iyo inta hadda madaxweyne yahay hal mar qalbiga dadka sidii idin qalbigiina uga bixin danqashada dhalinyaradaas ayaa ummaddu ay ahayd intii ka warqabtay safaaradda Soomaaliya 4 bilood 4 sano inta ka dhamaan waa ogteen 4 sano ku dhawaad usbuuc 6 bari la shaqeynaayo 5 bari hal maalin oo aan ka harsanay ama aan ka saaxanay arintaas ma ayeen jirin madaxweynaha ayaa ku dhiirigeliyay dadka Soomaaliyeed ee halkan ku nool inay caawiyaan oo ay garab istaagaan dawladda Soomaaliya maamulka dawladeedna ma shaqeyn karo hadduu shacab la shaqeynay shacabku hadduu dhaqaale bixinin dawladdu ma shaqeyn karto waxa madaxweynuhu ku amaanay Soomaalida ku nool qurbaha in dhaqan wanaagsan ay la tageen dalalkii ay tageen kaas oo ah iskaashi arrin kale waan ka mahad celinayaa oo ay tahay inaan idin sheego xaqiiqiyan marka laga hadlaayo Soomaalida degan Uganda khaasatan Kampala iyo guud ahaanba meel kasta ay ka joogaan runtii waxa noo soo hoyseen sharaf iyo magac wanaagsan madaxda dalkan markay ka hadlayaan Soomaalida kaliya ma aha privately inay aniga ii sheegayaan kaliya ma aha marka la isugu yimaado shirar waaweyn sida kan maanta aanu imid oo looga hadlayo arrimaha qaxootiga madaxweynaha dalkan Yoweri Museveni wuxuu ka hadlaa qiimaha ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin iyo sidee ay isugu tashadaan iyo iyagoo qaxooti ah sidee isu kaalmeeyaan ay u abuuraan wealth ama dhaqaale xoog leh oo dad badan runtii ay ku cooriyaan dhalinyaradu haddaad doonaysaan leadershipka Soomaaliya iyo mustaqbal fiican Soomaaliya ay hesho fadhigan ka kacdaan oo aad qayb ka soo noqotaan dawladnimadan hadda socota
hadday noqoto dhiigna u daadisaan maxaa yeelay kuwa hadda dibadaha ka imaanaya oo shisheeyaha ah oo shabaabka ku jira waa dhalinyaro idinkoo kale ah oo laakiin naftooda waxay u hurayaan idinka iyo walaalihiin iyo kuwa Soomaaliya jooga in nolol u diidaan idinkana hadda toosh idinku hayo oo la yiraahdo kan ma terrorista mise ma aha adoo shaqaysanayo horjeeda dalkan Uganda waxa ku nool Soomaali badan oo u badan dhalinyaro wax ka barata dalkan ganacsato iyo kuwa dana kale u jooga kuwaas oo hadda u muuqato rajo ah in dalkoodii ay dib ugu laaban doonaan Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Kampala dalka Uganda ugu yaraan 5 qof ayaa ku geeriyootay tiro inta ka badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo maanta ka dhacay meel u dhow saldhigga booliiska ee degmada Waaberi ee gobolkan Banaadir warbixinta warkaasna waxa inoo haya wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Kulmiye qaraxan oo loo adeegsaday gaariga noociisu ah Saarif oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa la soo dhigay ilinka hore saldhigga degmada Waaberi qaraxaya inta loo geeyay ku dhimatay 5 qof oo ku jiray ismiidaamiyihii saarnaa gaarigaas halka 7 qof oo kale ay ku dhaawacmeen oo ka agdhawa goobta wax ka dhaceen sida warbaahintu u sheegay qaraxa kadib afayeenka wasaaradda amniga gudaha Axmed Maxamuud Maxamed Axmed Said Arab waa u jeedin kooxdii burcadiineed ee shabaabka loo yaqaanay ayaa saldhigga Waaberi waxay damceen inay khasaaro geystaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waan u mahadcelinaynaa ciidanka lama amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo feedigsanaa cadowgaas u diyaarsanaa inay fashiliyaan dhibka ee shacabka Soomaaliyeed inay gaarsiiyaan ay rabeen waa u jeedin wax khasaaro ah oo tiro badan ma dhicin 5 ruux meesha ku dhimatay 7 ruuxna way ku dhaawacantay oo shacabka Soomaaliyeed ciidanka lamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya wax khasaaro ah soo gaaray ma jirto waxa ilaahay ugu mahadcelinaynaa cadowgaas ka daran tabar yareeyay oo hadda ku soo aruursaday inuu dadka shacabka qarxiyo ama khasaare inuu u geysto damacsanaa ciidankeena u diyaarsan mar walba inay shacabka badbaadiyaan sida booliska sida nabad sugidda goobta oo ay soo gaareen wasiirka amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islo Ducaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Janaraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid si uu ogaadaan khasaaraha ka dhashay qaraxa uu fuliyay naftii halkii ka tirsanaa kooxda nabadiidka ee cadeystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ayagoona sheegay inaysan amaanka wax u dhimi doonin qaraxyada kooxda nabadiidka ay ka geysanayaan goobaha ay shacabku ku badan yihiin wasiirka wasaaradda amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islo Ducaale ayaa kaga taxsiiyay ummadda Soomaaliyeed dadkii ku dhintay qaraxaasi waxaan halka ugu tacsiyeenayaa dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee maanta dhibka soo gaartay ku geeriyooday sidoo kale waxaan alla ugu baryayaa inta ku dhaawacantay in Ilaahu bogsiyo waa u jeedaan shacabka Soomaaliyeed dadka cadowga ku soo duulay shacabka markasta ay beegsanayeen shacab hadda waxa meesha lagu soo weeraray waa shacab marka waxaan alla ka baryayaa subxaanahu wa ta'aala inuu cadowgaas naga qabto waxaan sidoo kale leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shacabkan inaan u midoowno oo gacan bir lagu wada qabto marka waa mahadsan yihiin shacabka si ay ula shaqeeyaan bisha Ramadaan inta dhiman waxaan rajaynaynaa inay ula shaqeeyaan waa dareemi kartaa qof nafli caari ah oo intuu baawar la soo carar oo meel dad shacab joogo iskaga beegsaday marka waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo in hay'adaha amniga sidoo kale amniga waxaan farayaa inay dadaalkooda labalaabaan waaxda nadaafadda ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan dib u soo celinta bilada goobta qaraxa ka dhacay waxaana dib u furmay ganacsigii socodka dadka guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in 8 bishan soo socota uu furmi doono kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya warbixinta warkan waxa inoo faahfaahin doona Ibrahim Gudle Isxaaq kulankan gudiyada joogtada ah ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maanta ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga miisaaniyadda dalka ee baarlamaanka kalfadhiga labaad marka uu soo laabto uu ansixin doono iyo qodobo kale
kulanka oo uu shir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad waxaa gabagabadiisa warbaahinta qaranka la hadlay xogayaha baarlamaanka Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux oo faahfaahin ka bixiyay kulankan maanta ee gudida joogtada iyo guud ahaan qodobadii looga hadlay. ajandaha shirku wuxuu ahaa dhowr shay oo istur saaran laakiin waxa ugu muhiimsan saddex haddaan soo qaato arrimaha security iyo nabadgelyada laga hadlayay waxa kaloo laga hadlayay ma aragtay goorta la furi doono baarlamaanka maadaama ciidii ay hadda soo galayso ciidii oo xildhibaano badan ku maqan yihiin xajka lagu maqan yahay waqti ciideedii ay soo galayaan goorta ugu haboon ma aragtay la furi karo ayaa la isla gorfeen. markana daawadayaal waxaa la soo gaaray aadaankii salaada cishaha ee xilliga Muqdisho. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. inta aynu ku dhaafno aadaanka salaada cishaha iyo qadarkii ducada ahaa ee ka dambeeyay halka aad kala socoteen waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed markana aynu dib ugu laabano qodobadii inooga harsanaa wararkayaga. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan qaybaha bulshada ayaa magaalada Garowe kulan kula qaatay wafdi ka socday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyagoo ka wada hadlay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen labada dhinac. warbixinta warkaasna waxaa inoo haya wariyahayaga Cumar Xasan Cali. sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka guddiga oo ka duulaya istiraatiijiyadiisa waxa uu bilaabay safarro iyo kulamo uu ku kala bixinayo dowlad goboleedyada Soomaaliyeed waxaana kulamadan ay salka ku hayaan la tashiga iyo ka qaybgelinta qorshaha 5 sano ee soo socota ee guddiga ka warbixinta sharciga xisbiyada siyaasadda ee dhismaya iyo wada shaqaynta guddiga iyo dowlad goboleedyada xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka
oo gaaray magaalada Garowe ayaa waxaa kulan soo dhaweynaya sidii lagula shaqayn lahaa u sameeyay wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka iyadoo madaxdan ay kala shaqeeyeen guddiga fulinta qorshe howleedka kor ku xusan ee guddiga iyo hagidda iyo isku xirka dhammaan waaxyaha iyo hay'adaha dawladda iyo guddiga waxa uu qorsheeyay in uu la kulmo madaxweynaha dawlad goboleedka gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada xildhibaanada guddiga doorashooyinka Puntland wasaaradda dastuurka ururada bulshada haweenka iyo waxgaradka Puntland waxaana guddiga oo ay horkacayaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ay kulan heer sare ah madaxtooyada Puntland kula qaateen madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyadoo kulanka ay goobjoog ka ahaayeen wasiir dowlaha madaxtooyada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka madaxweynaha Puntland oo si wanaagsan xubnaha guddiga ugu soo dhaweeyay madaxtooyada Puntland ayaa soo dhaweynta kadib ka dhageystay warbixin tifaftiran oo dhinacyo badan taabanaysa waxaana ugu muhiimsanaa waxyaabihii u qabsoomay guddiga muddadii uu jiray caqabadaha horyaala doorashada 2020 iyo sida looga gudbi karo iyo sida ay muhiim u tahay wada shaqayn dhaxmarta dawlad goboleedka Puntland iyo guddiga madaxweyne Gaas ayaa si diiran u soo dhaweeyay warbixinta guddiga iyo hawsha adag ee u dhabar adeegeen wuxuuna carabka ku adkeeyay Puntland ay diyaar u tahay inay si dhow la shaqeyso guddiga waxa kale oo madaxweynuhu guddiga ku booriyay inay u dhaqmaan una shaqeeyaan inay yihiin guddi Soomaali oo dhan matalaya ayna la yimaadaan hufnaan iyo wada shaqayn gaar ahaan hay'adaha ay shaqada kala dhaxayso madaxweynaha Puntland waxa uu meesha ka saaray in xisbiyada siyaasadeed ee abuurmaya ay ku koobnaadaan hal deegaan oo kali ah isagoo dhanka kale ku dhiirigeliyay guddiga inay la wadaagaan wasaaradaha iyo guddiga doorashooyinka Puntland aqoonta iyo hay'adaha kale ee shaqada la leh wixii dhaqaale ah ee loo qoondeeyay doorashooyinka dalka sida ku cad war-saxaafadeedka ka soo baxay guddiga madaxweyne Gaas waxa uu muujiyay inay tahay waajib in dalka la gaarsiiyo doorashooyin xor ah oo ku dhisan qof iyo cod guddiga waxa uu madaxweynaha Puntland ku wareejiyay dukumiintiyo ay kamid yihiin qorshe howleedka 5 sano ee soo socotay ee guddiga dukumiintiga diiwaangelinta xisbiyada warbixinadii 4 biloodlaha ahaa ee sanadkii hore iyo dukumiintiga dhismaha xarunta weyn ee loo dhisayo guddiga waxaana guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay cadeeyeen inay diyaar u yihiin in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka qabsoonto marka ay dhamaato muddada dawladda hadda jirta barnaamij roobdoon ah oo ay ka qayb galeen dadweyne aad u fara badan culimo diin iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa mar kale warkan nooga soo diray magaalada Gaalkacyo wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo shalay soo gaaray magaalada Gaalkacyo kulamada la qaatay mas'uuliyiinta Galmudug iyo Puntland ayaa maanta goobjoog ka ah saxiixa 7 qodob oo ay ku heshiiyeen labada maamul lana filayo inay horseedaan nabadda gobolka Mudug Cabdi Faarax Juxa wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka oo la hadlayay mas'uuliyiinta labada dhinac iyo waxgaradka ayaa cadeeyay hadafka dawladda federaalka ee aadan nabadda gobolka iyo heshiiska cusub iyo halka ay ka goodo nabadda Gaalkacyo dawladda dhexena Gaalkacyo nabad bay ka rabtaa Muqdisho iyo Garowe iyo Cadaado intuba Gaalkacyo nabad bay ka rabaan ama si kala hadaan u dhaho Farmaajo iyo Xaaf iyo Gaasba Gaalkacyo nabad bay ka rabaan laakiin nabaddu waxay ka godaa oo gacmahooda ku jirtaa reer Gaalkacyo marka in hoos loogu dogo la kabiyada colaad oo isfuulay aad bay muhiim u tahay heshiiska hordhaca ama isfahamka hordhaca waa gaarteen anaga waa soo dhaweynaynaa waa marka hore in daaqsinta iyo ciidanka isku dhafka iyo amuraha laga shaqeeyo wacyigelin iyo wadooyinka la furo waxa dhabta oo reer Gaalkacyo ama reer Mudug isku hayaanina marka la galo waxa la qabaa inay tahay Gaalkacyo meeshii Soomaaliya ka burburtay waxaana la qabaa inay noqon karto meesha ay ka dhisanto dawladuna sidaas ay aragtaa madaxweynuhu waa soo socdaa wuu imanayaa dalkan inuu soo maro rabaa dawladdu way jeceshahay waxa la wixii ay qabtana qayb bay ka qaadanaysaa laakiin waxaan rabaa inay dad tusaaleeyo in talada gacantiina ay ku gaartaan hantidiinana ku bixisaan Gaalkacyo sideedana wax lagu guuleystay oo aan Soomaalidu geedka hoostiisa ku samaysan wali lama hayo mas'uuliyiinta gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ayaa mar kale sheegay inay ka go'an tahay kamira dhalinta iyo hirgelinta nabadda gobolka dadkii waa isu guuray oo meel walba maraya bacadweyn ereyadeedaas aan tagay
shalay maaha durha dadku waa isdhex galay cid hadda ku kala dhex jidhaana ma jiro wax dhiboo dhex taalla ma jiraan daaqi dhumana wada daaqayaa horta barwaaqadaas aynu maraynaa dhowr iyo 10kii beri oo aanu soo wadnay hawshaan heshiiska annagu waa soo dhaweynaynaa dhinaca iyaga waa iska caddahay inaan soo dhaweynayno waa wax cad wey 3 bilood baa xabajoojin iyo orod iyo dagaal ku jirna hadda la rabaa tanfiidka ficilkan in la hela in la dhaqan geliyaa oo deegaanada fog la tagaa oo dadka la gaarsiiyaa oo arrinta aan ka dhamayno waxaan leeyahay siyaasiyiinta oo annagu aan mas-uulka ka nahay markii gobolkan la joogo walaalayaal oo gobolkan waxa ugu darnaa wuxuu ahaa hoggaan siyaasadeed xagga hogaamaha siyaasadda ahay maanta hoggaanka marka waxaa laga rabaa annagoo ka ambaqaadayna madaxweynayaashii iyo caleemasaarkii hadalkoodii ahaa annagoo tixgelinayna imaatanka wasiirka arrimaha gudaha Mr. Juxa annagoo xeerinaynaa in allaale intii howl aan wadnay waxaan diyaar u nahay inaan dhammaanteen ka wada shaqeyno oo fulino heshiiskan ugu dambeyn waxgaradka iyo nabadoonnada guud ahaan gobolka Mudug ayaa soo dhaweeyay heshiiska iyo wafdiga wasiirka arrimaha gudaha wixii ilaahay uu noo aslaaxiyey oo ilaahay dhabada qaada yiri baa maanta waxaa moodaa ilaahay inuu na tusay baa moodaa waxaan leenahay sida walaalaheen u qaateen qoraalka wasiirku akhriyay sidoo kale aan u qaadanay wixii hadal iyo qaabana waa nooga dambeeyay intaa ka bacdi sida loo sheegay qoraalkaas la akhriyay waa intaanu istusnay oo niri oo ku heshiinay wey dhinaca iyagana waxaan ballan qaadaynaa wixii aan ka qaban karno fulintiisa inaan ka fulino cabdinaasir maxamed cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed gaalkacyo tartan qur'aan akhris ah oo lagu maamuusayay bisha fadliga iyo khayrka badan ee Ramadaan ayaa magaalada Baydhabo loogu qabtay 150 arday oo ka kala socota dugsiyada kala duwan ee ku yaala magaaladaasi warkana waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyahayaga aalab halkaas inooga soo warama Siraaji Sheekh Isaaq يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون tartankan quraanka ayaa magaalada Baydhabo ka socday intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana ka qayb qaadanaya in ka badan 150 arday oo ka kala socday madaarista Quraanka Kariimka ee ku yaala magaalada Baydhabo munaasabada lagu soo gabagabeynayay tartanka Quraanka Kariimka oo maanta lagu qabtay masaajidka weyn ee jaamaca magaalada Baydhabo waxaa ka soo qayb galay wadaado caan ku ah deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya macallimiinta dugsiyada Quraanka Kariimka wakiilo ka socday shirkado maalgeliyay tartanka Quraanka Kariimka iyo waliba qaar ka mid ah dadka magaalada Baydhabo ugu horeen ardadii kaalmaha hore ka galay tartanka Quraanka Kariimka ayaa goobta lagu guddoonsiiyay abaalmarino ay ka mid ahaayeen lacag kutubo diini ah shahaado iyo waliba qalab kale oo aad u tiro badan Sheekh Ibrahim Macallin Mudey Macallin Nunne iyo Sheekh Ibrahim Daabshiil oo ka mid ahaa howlwadanadii tartanka ayaa ugu horeen goobta ka hadlay waxaana mahad gaar ay u soo jeediyeen cid walba oo ka qayb qaadatay tartanka Quraanka Kariimka may mahadan celiyaane in Allah la intii kaalanka jeesati musaabaqadaas inay qofsoonto iyo aan ku horeeyaan macallimiinta dugsiyada taxfiidka Quraanka Kariimka magaalada Baydhabo oo ajiibeen marlama ma mahad celiyaane ardadii xaadirtii musharikiinta hayaan ee musaabaqadaas ka qayb galeen may kale mahad celiyaane ganacsatadii shay waliba dhaqaale lagama socdo karaan taageer lagama socdo karaan ganacsatadii taabagilidii tartankan usee inay ka qabsoomo masaajidka jaamaca sisan arga haytan meel fagaare ya maalinka inka dhiibi walaay ka jara haddaas la arga doona ardayga faaiz nagada iyo ardayga raasib nagada haddaas la arga doona insha Allah taala haddana waxaan rabnaa inay la sii dhiirigeliyo waxa loo qabanaya tartanka maqsadkiisa waxa waa in quraanka la sii jeclaado inuu ardayga akhriyo faa'iidada laga helayo waxay tahay ardayga markii tartan aad galaysa la yiraahdo macallinkii iyo waalidkii iyo isagaba juhdi ay galay bilaabaya bil Ramadaan lagu jiro quraanka akhriskiisa ya badanay qaar ka mid ah waalidiinta ardada iyo waliba culimadii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa waxa badan ka faalooday muhiimadda barashada Quraanka Kariimka ay leedahay insha Allah way dardaarmay meelka maama ahday xikmadaha
gool libe hooba foolat meel ku sugay in libeeli dhalo la faday hooba jiir dhalo goran goolado la sugaay gool libe foolat si unug libe dhalo la faday hooba jiir dhalo goran wala ka xisaabtamay ma marka hadda may ka alahay meel raay dadki gool yani gool ay jiir dhalne libeega taran kamel ay nasliga libeega socdo fadaan marka insha Allah tabaaraka wa taala may eedan dhiir geliyay sanadku dambe inuu ku siifay lahaan iyo eedan qurux badan xilliyadii hore gobolada Bay iyo Boqol barashada diinta Islaamka waxaa looga soo safri jiray dhammaan gobolada dalkeena Soomaaliya waxaana dadka ku dhaqan Bay iyo Boqol ay caan ku ahaan jireen soo dhaweynta Soomaalida gobolada kale uga soo safarta barashada diinta Islaamka inkastoo wali lagu barto Bay iyo Boqol Quraanka Kariimka haddana waxaa aad u yaraatay oo hoos u dhacay dadkii gobolada kale ka imaan jiray ee gobolada Bay iyo Boqol u soo doonin jiray barashada diinta Islaamka taasoo loo aanaynayo in goboladii kale ee dalkeena Soomaaliya ay dugsiyo Quraan ka furteen culmo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Siraaji Shaysa Qurbaynta Qaranka Soomaaliya Baydhabo Janaay safaaradda Djibouti ee Soomaaliya ayaa maanta dhar ay ku ciidaan waxa ay u qaybisay gabdhaha ku jira xarunta xanaanada agoonta gabdhaha Boondheere ee magaalada tan Muqdisho warkanna waxa inoo sii faahfaahin doonaa wariyahayaga Cali Cabdiraxmaan halkan waa xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ee Boondheere oo ay ku jiraan gabdho badan oo lagu siiyo waxbarasho iyo hooy bilaash ah oo dad muxsiniin ay ku caawiyaan waxaana maanta qunsulka safaaradda Jamhuuriyadda Djibouti ee magaalada Muqdisho uu halkaasi gaarsiiyay dhar ay ku ciidaan gabdhahaasi agoonta ah gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir Zainab Yusuf Weheliye ayaa sheegtay in dawladda Djibouti walaalnimada ka sokow ay tahay maciin garab u ah shacabka Soomaaliyeed ayadoona mahad balaaran u jeedisay shacabka iyo dawladda Djibouti waxa wax weyn oo yaani maxay tahay la soo yaani taariikhda baal dahaba ka galay oo aan la koobi karin oo waxa la soo koobi karin ay tahay safaaradda Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo madaxweynahooda Ismaaciil Cumar Geelle inay maalin walba ayagoo maxaan ku iraahdaa ayaan ognahay inta ay noo jiraan masaafo ahaan ay haddana ilmaha agoonta ee gabdhaha ah ee aabayaashoodii waayay ee qaarkood hooyadii waayay iyo aabihiiba waayay in ay maxaan ku iraahdaa ay u dhisaan meel ay wax ku bartaan oo ay seexdaan oo ay dhaxanta iyo dhalada ka gabadaan oo qabowga ay ka galaan haddana ay maxay tahay 24 saac la daba taagan yihiin waxay ku noolaan lahaayeen iyo waxay hugan lahaayeen iyo waxay halkaas ku joog lahaayeen inta qunsulka safaaradda Djibouti ee Soomaaliya ahna kusimaha xilka safiirka mudane Sahal Cabdi Yusuf oo deeqdan dharka u qaybiyay gabdhaha agoonta ayaa ka warbixiyay deeqdan waxay ka kooban tahay maanta hawshan aanu nimid waxa weeye inaan qaybino oo walaalahayga naga yaryar ee xaruntan lagu xanaaneeyo inaan u qaybino dhar ku dhow ilaa ka badan 150 ubad ah dharkoogii ciidda iyo kuwii ay ku gal lahayeen sanadka soo socda ee cusub ay ku gal lahayeen iskuulka waa farxad gaar ah waa sanadkii labaad oo safaaradda Djibouti ay gabdhahaasi u qaybiso dhar ay ku ciidaan ayadoo sidoo kale dhismaha xaruntan ay dawladda Jamhuuriyadda Djibouti ay hirgelisay Cali Cabdiraxmaan Aadan SNTV gudoomiyaha gobolka Bakool iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay munaasabada lagu soo bandhigayay horumarada ka jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool isla magaalada Xudur warbixinta warkan waxa inooga soo diray wariyahayaga halkaas inooga soo warama Maxamed Xasan Cabdiraxmaan kulankan oo ay soo abaabuleen maamulka gobolka Bakool kan degmada Xudur ayna ka soo qayb galeen maamulka degmada Tiyaqlow saraakiisha booliska iyo dhammaan ururada bulshada rayidka sida culimaa u diin odayaasha dhaqanka ururka haweenka dhalinyaro gudiga xaafadaha iyo waxgarad kale kulankani oo lagu qabtay xarunta shirarka ee gobolka Bakool ayaa maamulka waxa ay ku soo bandhigay waxqabadkooda muddadii ay xilka hayeen iyaga oo u mahad celiyay bulshada reer Bakool sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen
waxayna bulshada ku booriyeen in ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha dhaliya amni xumada. gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo kulanka ka hadlay ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay ururka dhalinyarada hooyooyinka iyo xaafadaha oo muddo 4 sano oo baaritaano ku sameynayay wadooyinka soo gala gudaha magaalada Xudur. xaafadaha iyo haweenka iyo dhalinyarada way dadaaleen muujiyeen askar gaamaniyo bilaa lacag laan iyo nooto mushaar laan iyo warbilisyan waska gaamani jag boontiyaas misan keelooyinkaas duuban oo waardu ku badan nanguro macna wala qabla ka balam siina aniga ka baan fayl armoyaha ti warka balamay way kama naqana markasta waana sharaf lillah dadkiyo macna shacabka ka dhool magaalada laakiin sidiidas waa halo dhalinyaradu oo haweenka oo xaafadaha dadaan badan muujin. gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tol oo khudbad dheer ka jeediyay madasha ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa markii koowaad ma siin ma nagay oo way siin roogne intel ko gaalada madilo horay inta ka dhatiyo 4 sano wali hadda muumus 4 sano buu inta la taa nagdi dadkii la shaqeeyay oo madiin inta ko in garabka in qobaday hoolil hasfuliyay nabadgelin geedku ka fadhiyana asdeersin inta fadhiyo dadkan aad fadhi geel aasay madasin badan ma geel aasay dadku yaraayeen fikrideeda ay ilaa ka wada shaqeeyay mari alshan ka una tab fadhina kumada toogin kumaday dadkan aad hortaan fadhi waay in lama yaado beedka ka joor beedka jaran oo ciidamada kumaday namiyahu reer Huduro way haastay shaqeynayna muddo joogtaan shaqeynayna 3 sano wali jaran oo dhamaaday 4 sano yar dhamaan yaa si joogtaan inay shaqadii una haastay qowneena eedan feelay. maamulka gobolka Bakool ayaa inta badan lagu amaanaa hanashada ammaanka degmooyinka ay ka arimiyaan mana jirto wax fal dambiyeed oo maleeshiyada al-shabaab ay ka fuliyeen degmooyinka gobolka Bakool marka laga reebo wadooyinka oo mararka qaar ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah. kulankani wuxuu ku soo beegmayaa xilli wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo tan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay wadaan qorshe maamul cusub loogu sameynayo degmooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Xudur. halka warka aydan kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed. qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi Afghanistan ee loo yaqaan Helmand kaasi oo dilay ugu yaraan 25 qofood halka dhaawacuna uu ka sar maray 60 qofood. goobjoogayaal ayaa sheegay in askar iyo shaqaale dawladeed ay isugu soo baxeen dibadda bangiga New Kabul ee magaalada caasimadda u ah gobolka. goobjoogayaal ayaa sheegay in askar iyo shaqaale dawladeed ay isugu soo baxeen dibadda bangiga New Kabul ee magaalada caasimadda u ah gobolka Lashkarga ee si ay mushaaradkooda u qaataan markii qaraxa lagu weeraray. afayeen u hadlay maamulka gobolka oo lagu magacaabo Umar Zaka ayaa VOA u sheegay in qaar ka mid ah kuwa dhaawacmay ay ku sugan yihiin xaalad liidata. waxa uu intaasi ku daray in shaqaale military iyo kuwa rayid ah ay ka mid yihiin dhibanayaasha. qaraxan dhimashada badan ayaa yimid maalmo uun ka hor dabaaldega ciidda ee dalka Afghanistan oo la filayo in ay ku beeganto Axadda. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Helmand waa gobolka ugu ballaaran dalka Afghanistan oo inta badan dhulkiisa ay maamulaan ama saameyn ku leeyihiin kooxda Taliban. warkii caalamka oo daawadayaal aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo intaynu ku kulmi doono warka iyaga xiga anigoo ah Mawlid Maxamed Safriye waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo nooli kulante iyo Ramadaan Kariim.